wasiirka wasaaradda amniga dowladda Jubbaland mudane Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga dowladda Jubbaland iyo howlgalka AUSOM ayaa maanta tababar u soo xiray cutub ka tirsan ciidanka gaarka ee madaxtooyada kuwaas oo bilihii la soo dhaafay qaadanaya tababar heer sare ah. ciidamadan ayaa muddadii uu tababar ku socday bartay cashiro kala duwan oo muhiim u ah xirfadda askarnimada kuwaas oo kor u qaadaya aqoontooda, kartidooda iyo tayada shaqo. sidoo kale waxaa barbar socday barnaamijyo lagu dhisay anshaxa hufnaanta iyo sare u qaadista wacyigooda si ay si hufan ugu gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday. munaasabadda xiritaanka tababarka ayaa ciidamada waxay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah xirfadaha iyo cashiradii ay barteen muddadii tababarka adag uu u socday, taas oo muujisay heerka tayada iyo diyaar garowga ay gaareen. wasiirka amniga dowladda Jubbaland mudane Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horeyn u mahadceliyay saraakiisha iyo macallimiinta tababarka bixisay gaar ahaan ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AUSOM kuwaas oo door weyn ka qaatay hirgelinta tababarkan adag. runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka hore dowladda aan walaalaha nahay oo Kenya oo noogu deeqday gurmadka iyo waliba inay tababaro noo samayso. waxaan isleeyahay dhalinyarada horteeda taagan dowladda Kenya soo abaal naguma laha. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa KDF ciidamada dalka Kenya oo runtii ah Afrika markii la yiraahdaa kuwa ugu tababarka wanaagsan uguna disciplineka wanaagsan ayaa haddana waxaad nasiib u yeelateen inay wax idin baraan. waxaa kaloo u mahadcelinayaa sector commanderka oo runtii aysan suuragal noqoteen haddii uusan tababarka nagu garab siinin ama uusan noo ogolaanin inaan maanta difcaddan iyo kuwa horeeyeyba oo wax la baray aysan wax barteen. wasiirku waxa uu sidoo kale uga mahadceliyay madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam isagoo uu ku ammaanay hogaamintiisa iyo dadaalada joogtada ee uu ku bixinayo dhismaha tayeynta iyo horumarinta hay'adaha amniga Jubbaland. waxaa kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Jubbaland oo runtii aysan suuragal ahaateen haddii uusan ogolaanin dhalinyaradan da'da yar inay dalka u shaqeeyaan oo aan la kaashano dowladda aan walaalaha nahay inay noo tababaraan. asaguna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. ugu dambeyn wasiirka ayaa ciidamada tababarka dhamaystay ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan aqoonta iyo xirfadaha ay heleen isla markaana ay si daacadnimo, karti iyo mas'uuliyad leh ugu adeegaan shacabka iyo dowladda Jubbaland. waxa aad idin tababaray waxa weeyo inaad dalkiina wax tartaan iyo dadkiina. waxa kaloo la idin tababaray waxa weeyo inaad shacbiga Soomaaliyeed oo aad ka timaadeen aad ka shaqeysaan amnigiisa iyo nabadgelyadiisa. maantay waxaad wadataan astaan gooni ah oo ah astaantii qaranka adinkoo calanka qaranka Soomaaliyeed iyo midka Jubbalandba labada dhinac ku wato. jumaysaan marka inaad tahay muwaadin u soo banbaxay in uu dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyo. ilaahay baa na makanadiyay na Mungu ndo alifanya waoni nchi in cid noo hagaajinaysana ma laha haddaan anagu hagaagsanin. maantay waxaa nasiib darro ah dadka Soomaaliyeed in ay aad u jahawareersan yihiin in maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed
oo dalka u dhalatay la rabo inay islaayaan oo qolada kala difaac ay ugu jirto waxay isku leynayaan aan la garanaynin na hujui wanapigania nini. dadka Soomaaliyeed ama dadka adduunku siyaasadda iyo aragtida waa ku kala duwanaan karaan laakiin in qoryo la qaato qoryo inta la qaato la isku laayo ma aha oo dadka la barakaciyo. Sabriya Soomaali warbaahinta Jubbaland Kismaayo.